waxyaabaha ay iska shabahan oo ay isku mid ka yihiin markabkii baaxadda weynaa ee Titanic ee quusay sanadii 1912 iyo dhacdadii dhacday maalin ka hor ay ku dhinteen 5 milyaneer ah. This is an incredibly complex search operation. We're losing time and we're losing opportunity to find them alive. Ocean Gate shouldn't have been doing what it was doing. haddaba waxyaabo badan ayaa la ogaaday oo banaanka imaaday mas'uuliyad darrada iyo taxaddar xumada shirkaddan submarine Titanic waxay ku kontroolayaan ama ku wadeen qalabkan yarka ee lagu ciyaaro geemamka. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeenan wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha ay iska shabahan ama isku mid ka dhigay markabkii baaxadda weynaa ee Titanic iyo submarine-kii quusay maalin ka hor ama ku qarxay badda hoosteeda. markabkii abid ugu baaxadda weynaa oo bini'aadam sameeyo, injineerkii hindisa markabkan wuxuu sheegay inuusan quusi doonin waxna ku dhici doonin markabkan xitaa hadduu isku dayo. Allah ninkaas hadalkiisa Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu sababay buur badda ku dhex taala in markabkan uu qarqarka ku dhuftay, wuxuuna noqday in markabkii laba cad uu kala jabo. musiibadaas ku dhacday Titanic ilaa maanta bini'aadamku ay hadal hayaan. sidoo kale dadkii markabkan la socday waxay u badnaayeen dad bilyaneer ah oo lacag haystay. rakaabka markabkan waxaa loo kala qaybiyey laba kooxood, kuwa taajiriin ah iyo kuwa fuqara ah oo markabka saarnaa. kuwa taajiriinta ah waxay ku noolaayeen dabaqada sare ee markabka, halka kuwa fuqarada ah la geeyay sagxadda hoose ee markabka. dhammaantoodna waxay ku halaagsameen ama ku dhinteen biyahaas badda. dhacdadii dhacday maalin ka hor ee Titanic submarine oo ay ku dhinteen 5 qof, shirkaddan ninka iskale wuxuu sheegay inuusan shaqaalaysiin doonin oday 50 jir ah oo cadaan ah, taas oo uu kala jeeday markii uu shirkaddan furayay ama aasaasayay inay u imaadeen dad khubaro ah oo yaqaano sida loo kaxeeyo submarine-nada kala duwan. dadkaasna waxaa ka mid ahaa ciidamo hore uga soo shaqeeyay maraakiibta dagaalka iyo submarine-nada kala duwan. haddaba shirkaddan ninka iskale asagoo ku jeesjeesaya ayaa wuxuu sheegay inuusan shaqaalaysiin doonin oday 50 jir ah oo cadaan ah si uu maraakiibtiisa ugu dhiibo, wuxuuna sheegay shirkadiisa inay la jaan qaadayso tiknoolajiyadda casriga ah. haddaba markabkaas yar ee lagu magacaabay Titanic submarine oo ay saarnaayeen 5 qof waxaa lagu kontroolayay ama lagu waday qalabka yarka ah ee lagu ciyaaro geemamka. meeshaas ayaana laga hagayay. 5taas qof ee milyaneerada waxaa ka mid ahaa ninkan Bakistaaniga ah oo muslimka ah iyo wiilkiisa oo 19 jir ah. hadafkoodana wuxuu ahaa inay soo arkaan haraadiga markabkii Titanic. gudaha hoose ee badda ayay salka u galeen, safarkooda ayayna sii bilowdeen ayagoo marba marka kasii dambeysay hoos u sii quusayay. aad ayay u faraxsanaayeen ayagoo isleh dalxiiskiina wuxuu noqon doonaa dalxiis taariikhi ah. shirkadda submarine-ka sameysana waxay ahayd safarkii ugu horeeyay oo ay badda gudaheeda ugu ambabaxaan ayagoo adeegsanayo kuna kontroolayo qalabka geemka lagu ciyaaro. ayagoo saacado sii maqan ayaa hal mar waxaa hawada ka baxay communication-kii, waxaana la waayay meesha ay joogaan. warbaahinta iyo meel walbana waxaa qabsatay in 5taas qof ee dalxiisayaasha ah oksijiinkooda uu gabaabsi yahay, haddii la soo badbaadin waayana ay tahay halis inay sii noolaadaan. laakiin dhinaca kale 5tan qof waxay go'doon ku ahaayeen bahalkaas yarka dhexdiisa. marba marka kasii dambeysana gudaha badda ayay hoos u sii galayeen. mar walba oo ay hoos sii aadaana waxaa sii adkaanaysay inay helaan oksijiin. cadaadiska biyaha baddana hoos ayuu uga imaanayay. meeshaasna waxaa ku qarxay submarine-ka ee saarnaayeen, ayagana gebi ahaan meeshaas ayay ku dhammaadeen oo ku dhinteen. saacado kadib ayayna ogaadeen warbaahinta, markaas ayaana bulshada loo xaqiijiyey in 5tii qof ee qaraxaas ku dhinteen. meeshaas xoogaha noogu hay, bal aan dhinaca kale haddana wax ka eegno. sidee xaaladdu noqon lahayd haddii ay dadka nabad ku soo laaban lahaayeen, haddii ay dalxiisayaasha nabad dib ugu soo noqon lahaayeen? shirkaddan waxay noqon lahayd shirkad teknoolajiyadda submarine-nada bilow u ah, sababta oo waxa lagu kontroolaya submarine-nadaas ama lagu waday qalabka yarka ah ee geemka lagu ciyaaro. hadafka shirkaddan waxay ahayd in maraakiibta iyo submarine-nada lagu kaxeeyo qaab digital ah, ama qofka asagoo xaafadiisa joogo in intuu markab inta ka kaxeeyo meel raba uu geyn karo asagoo kala socda shaashadda. laakiin taas ma aysan dhicin oo meeshaas waxaa ku soo dhammaaday hadafkii iyo qorshihii ay ka damacsanaayeen shirkadooda. haddaba waxyaabaha ay iska shabahaan markabkii baaxadda weynaa ee Titanic iyo Titanic submarine-kii hadda maalin ka hor badda hoosteeda ku qarxay waa taxaddar la'aanta iyo inaad iska dhigto waxaadan ahayn. injineerka hindisay markabkii Titanic wuxuu la xifaaltamay Allah subxaanahu wa ta'ala asagoo sheegay in markabkan uusan quusi doonin waxna ku dhici doonin xataa hadduu isku dayo. Allah musiibadii ku dhacday 1912 ilaa maanta bini'aadamku ay hadal hayaan. sidoo kale shirkaddan ninkii iska lahaa asagana taxaddar la'aan iyo mas'uuliyad darro ayaa meeshaas dhigtay oo maanta ganacsigiisii iyo hadafkii uu lahaa meeshaas ayay ku soo dhammaadeen. ma og tahay haraadigii Titanic in gudaha badda uu ku jiro in la eg 10 jibaar dhismaha maanta dunida ugu dheer ee Burj Khalifa oo la istaba taxay. si aad meeshaas u gaartaan waxaad u baahan tahay oksijiin aad kuugu filan iyo taxaddar aad u fara badan. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, waxaa inoo ballan ah muuqaalkan muuqaalka xiga wuxuuna noqon doonaa muuqaal aad u xiiso badan. waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.